قوة وبلاغة. اللهم أغثنا، اللهم أغث. يا سلام يا مؤمن يا مهيمن. ورحمة الله تهوسان الرحيم. آدي هذا النظر وجعل فيها سراجا وعباد الله إلا بالحق يوم القيامة ويقلب فيه أنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء ونحن عبادك الضعفاء. waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dib uga bixi karno waxay tahay inaan aqoonna xaqiiqda dhibka annagaa sugan mas-uuliyadda ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha. maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda. xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha naga ka bilaabo, annaguna waa inaan inta kale la xisaabtano. waxaa naga go-an oo ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oo u dhaqi karna aan u dhaqo. sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayn. marka aan aqbalnona aan ka heshiino sidii aan uga bixinay. waktigii xoolaha waddanka la dhacaya way dhammaatay, waktigii la isku xadgudbaayo way dhammaatay, waktigii albaabada laydinka xarin jira way dhammaatay. waktigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabta. waxaan idiin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idiin sheegno, si daacad ahna aan waddankan ku maamulo. maalin iyo laba laguma xallin kara dhibaatada waddankan, laakiin waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in bilaaw cusub uu bilaabo. waxaan idiin ballan qaadayaa markaad qorraxda fadhiisataan inaan idinla fadhiisan, markaad faraxdaan inaan idinla faraxo, markaad murugootaan inaan idinla murugoon. wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkan u baahan yahana inaan idin dhegeysan. albaabadan aan idiin furo, qalbiga adkaysta. ilaahay dhibkuu naga saari doonaa haddii ilaahay qalbigeena ha isu soo dhowey. ilaahay dhibka ha naga saaro, ilaahay imaankeena ha sugo, ilaahay cadaaladda hana waafajiyo. ilaahay dhibkan ummaddan dhibaateeyey sanadaad badan, ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso. ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso. ilaahu rabbi oo xaqa nagu dil. ilaahu rabbi isku soo la dhowey. ilaahu rabbi oo qabyaaladana baabaysa naga qabo. ilaahu rabbi oo adduunyadana wax ka raadinayna noogu bedelana annagu qalbigeena iyo annagu wax iska raadin. ilaahu shacabka Soomaaliyeed isku soo dhowey. ilaahu sharafteena noo soo celi. ilaahu karaamadeena noo soo celi. ilaahu culimmadeena barakay. ilaahu dhallinyaradeenna barakay. ilaahu dumarkeenna barakay. ilaahu madaxdeenna anugu aan ugu horreeya xaqa waafaj. ilaahu xaqana waafaj. ilaahu xaqana waafaj. ilaahay ha idin barakay kulliga. ku kasbanay dhibaatadaasoo ah
jariimada ugu weyn oo aadanuhu kasbado oo ah nafta muslimka ama mu'minka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyey dhiiggii ha loo daadiye waxaa la waayey dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya rasuulkeenu salawaatullaahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani ilmunkar walata'khudunna calaa aydi الظaalim أو ليسلط الله عليكم عذابا ثم تدعون فلا يستجاب waxaad faraysaan wanaagga xumaantaad iska reebaysaan qofka daalimka ee dhiigga muslimka daadinaya ee hantidooda burburinaya baad gacanta qabanaysaan haddaydan yeelin dhibaata idin camimta alla idinku soo dejinayaa ilaahay baad baryaysaan laydimana ajiibayo ikhwal acizaa waxaad u jeedaan beled iyo baadiyaba waxaa ka dhacaya dad abriyaa war dadka waxay u laynayaan aadan garanayn waxay u dhibaataynayaan aydan garanayn qofkay dilayaan xataa aan garanayn masaajidkii ku dilaya waddadii ku dilaya suuqii ku dilaya hantidii muslimka baabi'inaya subax walba ay qof maxaa kura gabar maskiina garoobaynaya ilmo masaakiina agoontaynaya illinta ka daadinaya dhaawacayo maydku dhooban yahay annaguna subaxi aanu fiirsanayno waa inay nafteennu u baxdaa dulmiga saan u joojinno u qabanno iskuna kaashanno markaas baa ilaahay naajibayaa haddaysan taasi dhicinin dhibaatadu sidaan bay noogu soo laalaabanaysaa ilaahayna faraj gacanteenna ku jira samada kama soo dejinayo farajku gacanteennu ku jiraa amniga iyo raqaha iyo naacawda iyo wanaaggu waa waxaan annagu kasban karno war qofkii maskiinka ahaa oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay biyihii lama gaarsiin karo haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa mooyadii u socotaba in la dubo in cuntadii laga boobo asagoo dhibkaas haystaan lacaga dusha laga sii saarayaa lasii boobayaa war dulmiga inaannu iska dulkicinno waa waajib diiniyoo na saaran ikhwal acizaa haddaannu ka meermeerno ka leexanno dhibaatooyinku meelahay nooga imaanayaan ilaahay nagama uu dulkicinayo qof walba ay afkaa biyo uga buuxaan dhibkiina way u wada jeedaan nafta allah guntoogooya siduu hadaayata sheekh nuuru lahaay oo kale naftu maalin bay baxaysaaye aanu isku kaashanno dalkaa nabad iyo amni iyo rakhasuu ku dhici lahaa waxayna ku dhici kartaa daalimka gacantiisa inaan qabanno haddaannu qabanninna ilaahay subxaana wa tacaala roobna nooma diinayo dhibaatada nagama dulqaadayo intaas baan rabay inaan idhaahdo ah sababta ugu weyn oo dhibka maantana haysata waxaan hadda ku soo dhawaynayaa ku wareejinayaa